madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ayaa daahfuray ololaha ka hortagga cudurka dabaysha sida uu warkaasi noogu soo diray wariyaheena Faisal Yuusuf Kacaan. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ayaa maanta si rasmi ah u daahfuray ololaha talaalka cudurka dabaysha oo ka dhici doona guud ahaan Somaliland. madaxweyne ku-xigeenka Somaliland waxa uu bulshada ugu baaqay gaar ahaan waalidiinta inay ubadkooda talaalaan si looga hortago loola ciribtiro cudurka dabaysha oo aafo qaran ku ah guud ahaan Afrika. alxamdulillah wasiirka agaasimaha guud labada hay'adood UNICEF iyo WHO iyo dhammaan shaqaalaha caafimaadka ku hawlan marka hore assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. salaan kadib idin sheegmayno ama idin sheegmayo muhiimadda oo caruurteena u leeyahay talaalku gaar ahaan talaalkan dabaysha ah ee maanta aynu daahfurayno waana waajib qaran oo dhammaanteena saaran runtii inaynu kala dagaalano caruurteena xanuunka dabaysha la yiraahdo. ololahan waxa uu taagan yahay in ilmo walba oo Somaliland ku nool inuu xaqiisa helo oo gaaro talaalkaasi gaaro. waxaan munaasabadani uga faa'iideysanayeen waalidiinta macallimiinta bulshada guud ahaan inay ku gacan siiyaan hawlwadeenada caafimaadka ee guryaha ugu imanaya ee kharash ku baxayana waxay naga caawinayaan hay'adaha WHO iyo UNICEF saa darteed waa inay bulshada dhammaan aynu ugu midownaa si aynu maartay hawsha ugu garab lahayn wasaaraddeena caafimaadka runtii iyo shaqaalaheeda. marka la eego dabargoynta cudurka dabaysha ee Somaliland waxa halkan bulshada Somaliland iyo caalamkaba uga cadeynayna in dawladda Somaliland ay ka go'an tahay la barbar taagan tahay wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha naga caawiyaba inay hawshaasi si habboon oo u fusho aynu ka dabar jarnana dhammaan cudurka dabaysha iyo cudurrada kale la mid ah faafaba inay Somaliland ka dabar jarno waxa ka go'an xukuumadda Somaliland inay inuu garab taagan tahay ay niguna ducaynayso ilaahayna xilka inagu asuro dhamaanteen. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici madaxda labada hay'adood ee WHO iyo UNICEF agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka agaasime xigeenada hawlwadeenada kale caafimaadka iyo shaqaalaha ka howlgelaya ololahan dabartirka xanuunka dabaysha dhammaantiinba aad iyo aad baan idigu mahadnaqaynaa. marka hore wasaaradda caafimaadku waxa u xil saaran tahay waxa weeye dejinta siyaasadaha lagu hagayo ama ha noqoto horumarin ama ha noqoto joogteyn ama ha noqoto ka hortagga xanuunada faafa ama kuwan faafinba. sidoo kale wasaaradda caafimaadku waxay dagaal badan kula jirtaa xanuunada faafa oo ugu horeyso xanuunka booliyada oo sida hore loo sheegay si gaara u saameeya caruurteena oo ah mustaqbalkeena. si markaa arrintaa wax looga qabto wasaaradda caafimaadku si joogto ah waxay u wadaa talaalka lagu dabartirayo cudurka booliyada oo sida agaasimuhu sheegay aan ahayn imiga ololahaynu qaadana ee mid ka socdo xarumaha caafimaadka ah. haddaan dib ugu noqdo 12 sano ka hor Somaliland waxaa laga ciribtiray xanuunka booliyada laakiin Somaliland ma aha jasiirad gaar u taala laakiin waxa xiriir ay la leedahay isku socod dadka ah wadamada jaarkeena. sidii hore loo sheegay 3 bilood oo dambeysay waxa la arkay ilaa 3 xaaladood oo xanuunka booliyada ah oo lagu arkay degmooyinka Buuhoodle iyo Laascaanood. taasi markaa waxay walwal gelisay wasaaradda caafimaadka oo ah in halka uu xanuunkaasi ka dilaacay ama lagu arkay xaaladahaasi aanu soo dhaafin.